maanta waa maalintii labaad shirweynaha xisbiga mucaaradka ee wadani oo ka qabsamay hotel cafe ee magaalada Burco ayaa waxa maanta cod gacantaaga lagu meelmariyay in xilkii iyo xubinnimadii laga qaaday xoogayihii hore xisbiga mucaaradka ee wadani Maxamed Cabdilaahi Urcadde ansixinta xubnaha cusub ee ku soo biiray shirweynihii koobaad kadib miisaaniyadda dhaqaalaha iyo qorshaha ee xisbiga mucaaradka ee wadani iyo qodobo kale oo tiro badan kuwaas oo lagu ansixiyay cod aqlabiyad ah taariikhda markay hadda afarta abriil 2018 waxaa soo jeeday guddida fulinta xilka qaadista ay u soo gudbiyeen oo ku saabsan xogeyaha guud gudoomiyaha xisbiga mudane cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro maxamed cabdilaahi Urcadde 344 ogolaaday in xalaaleeyo xilka qaadistaasi waxaa diiday 2 xubnood waxaana ka aamusay 6 xubnood sidaas baanay ku ansaxday xilka qaadista xogayihii guud ee hore mudane maxamed cabdilaahi Urcadde ogolaaday xubnahaasi hoggaanka magacyadooda dii sheegay khaliif kaysa xogayaha khadar Saleebaan iyo grup hoggaanka oo dhan baashacada jacay grup hoggaanka ka mid yihiin waxaa ogolaaday inay ilaa shirweynaha xilka sii wadaan 341 waxaa diiday 4 xubnood waxaana ka aamusay 7 xubnood sidaas baanay ku ansaxeen waxaa u codeeyey miisaaniyadda daraska miisaaniyadda 342 waxaa diiday 2 xubnood waxaana ka aamusay xubin sidaas baanu inoogu ansaxday intaasi kadib waxaa halkaasi ka hadlay mas'uuliyiintii ugu sarsaraysay xisbiga mucaaradka ee wadani macnaheedu waxa weeyaan waa kalsooni baan nasiiseen ilaahay waxaan nooga baridaan inaan ku fashilin inaan ku ceeboobin inaan isku buurbuurin oo aan albaabada ka xidhanin insha Allah idinkaan idin adeegi doonaa aragtida xisbigaan ku shaqayn doonaa aad iyo aad baa mahadsantihiin waa ku mahadsantihiin ansixinta aan ansixinteen waan dadaalanaa markii horena xisbiga dadaal iyo hawl iyo xoog iyo murug iyo maal intaba waa la bartaagnay iminkana waan ka sii badinaynaa aad iyo aad baa mahadsantihiin shaqaa inoo taala oo inuu shaqaynaa dhammaantiin annagu keliya maahe qaybta koowaad mudanayaal waxa sharaf weyn noo ah inaan idiin soo bandhigno xisaab xidhkii sannadahaas 2018 iyo 2019 oo isugu jira dakhliga soo galay iyo kharashkii baxay sida ku cad lifaaqyada koowaad iyo labaad ee warbixintani halkan raacsan oo qaybta labaad ah oo daraska miisaaniyadda 2020 oo la rabo inaad halkan ka ansixisaan la rabo oo ka go'aymayno kulli isbeddelkuna in dooro weeye waqti buu qaadanaya marka waxaan isku dayayaa inaan akhriyo wixii erayadii meesha aynu ka saaray maadaama xeerkiina wada haysataan marka qodobka la tilmaamo ee faqradiisana la tilmaamo faqradda wixii laga tiray waan sheegayaa waxa lagu bedelayna waan sheegayaa xilka laga qaaday xoghayihii hore Master Urcadde waxaa kale oo la ansixiyay 3 gudoomiye ku xigeen xogayaha guud Khadar Xuseen Cabdi iyo xubnaha hoggaanka xisbiga waxaa kale oo dib loo dhigay shirweynaha xisbiga muddo sanado oo maanta ka bilaabmaysa waxaa kale oo la ansixiyay oo daraska miisaaniyadda Maxamed Saciid Gaxnug telefishinka caalamiga badda cas Burco.